لكن أنت فرصة حوج بالشدو أيوب هنتهي أفرتها من الحضور كمذا waxaa magaalada goday ka furmay tababar ku saabsan habka xeerka madaniga xeerka xadaynta ciqaabta cusub ee dib loo habeeyay iyo xuquuqda maxkamadaynta degdega ah loo qabtay gudoomiyaasha iyo garsoorada maxkamadaha gobolada Shabeelle iyo Doolo iyo Nagab kulankan oo ah tababar aan siin doono gudoomiyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha saddex gobol ee jooga Shabeelle Nagab iyo Doolo saad ogtiin tababaradan aan qabanayno deegaanka dhammaan ka socdaan dhammaan garsoorka deegaanka inaan gaarsiino ku talagalnay ujeedada tababarku marka ma aha inaynu soo nimaado kaliya laakiin waxa weeye meesha markaynu tababarada qaadano in la noqono oo adeegyada aan bixinayna wax ka muuqdaan isbedel ka muuqdo waxaad ogtiin shuruucda isbedela markasta ku yimaada kuwa cusub baa soo baxa ama kuwii hore wax jiray wax laga bedelaa marka garsoorku waxaan ugu talagalay inay la jaan qaadaan isbedel kasta oo jira oo shuruucda lagu tababaro sababtoo haddii aynaan la soconin isbedel kasta oo yimaada iyo sharci kasta oo cusub oo soo baxa ama mid kasta oo wax laga bedelo shaqadan qabanayna wax ku imanaya dhantaal taa marka si loo kabo aqoonta garsoorkana kor loogu qaado meelaha goldolooyin ka jira oo dhan loo buuxiyo waxaan qorsheynay tababaro joogta in la siiyo garsoorka markasta dhammaan garsoorka deegaanka la gaarsiiyo gobollo idinku horeeyay baa jira idinkuna kuwii ku xigay baa tihiin marka maxaan u baahannahay faa'iido aan uga dan leenahay maxay tahay tababarna qabano tababarku waxa weeye inuu shaqadan hayno wax ka bedelo inuu aqoonta garsoorka kor u qaado cilmigu marna ma istaago mar walba uu kor buu soconaya maalin kasta oo loo baahan yahay wax dhammaystiran oo hal mar inta qofku wax barto halka ku istaaga ma jirto maalin kasta wax baa soo kordha macallimiinta waxay idin dhigaysaa waxaan ay idin soo gudbinayaan wax cusub oo soo kordhay weeye oo maalintii ay soo qaateen wixii ka dambeeyay soo kordhay marka maxaa loo baahan yahay garsoorku inay noqdaan dad wax akhriya la socda qaato tababarka marka la qaato tababarku furo u noqdo oo ku baraarujiyo in dib loo akhriyo waxaan ku shaqeynaa inaga sharci weeye sharcigaan ku shaqeynayna marka inuu ka baaran degno oo aanay noqonin dhaqan aan la qabsanay oo in yarun lagu soo noqdo laakiin ay noqoto shuruucda aan gacanta ku hayno ee aan ku shaqeynay ee dadka xuquuqdooda ku ilaalinayno in faham buuxaan ka qaadano arrintaas muhiim weeye garsoorka waxa looga baahan yahay waxa uu qoraya inuu sharciga ku saleeyo maalinta uu muddo qabanaya inuu sharciga ku saleeyo go'aanka uu qoray iyo qoraalkiisa inuu sharciga ku saleeyo natiijada soo baxaysa inay noqoto mid sharciga waafaqsan dhaqanna soo maray baa jira oo ahaa in aan sharci la adeegsanin ee ama rown la qoro waad soo aragteen go'aano la qorayo oo aan wax qodob sharci ku qoreen oo qof xuquuq ku waayo arrimahaasina meesha ka baxaan oo waxaan ugu talagalnay ee aan doonayna garsoorku haddii inta u baraarugaan asalku marka muxuu yahay dadka aanu adeegayno in aynu waxaan ugu adeegayno xaqiijino aqoonteenu ay dhammaystiranto waagaag daawadayaal wali halka naga dheehanaysaan waa telefishinka dawladda deegaanka Soomaalida SRTV daawadayaal kuwaasi waxaan warbixin naga soo gaaray gudaha deegaanka Soomaalida haatan qodobada wararka inta ka hayno dalka iyo daafaha caalamka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ay ka wada hadleen ilaalinta mowqifka adag ee ku aadan mawduucyada iskaashiga horumarinta kala duwan Cali Barkad ayaa faalada warkaasi noo eegaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay waxaan ka wada hadalay sidii aan u ilaalin lahayn mowqifkeena adag ee ku aadan mawduucyada iskaashiga horumarinta ee kala duwan Itoobiya iyo Shiinuhu waxay leeyihiin xiriir xooggan oo muddo 10 sano ah xiriirkan waxaa dhowaan la casriyeeyay iskaashi istiraatiijiyadeed oo aan la bedeli karin maanta waxaan qaabilay wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi waxaan ka wada hadalay horumarinta joogtada ah ee dawladda Itoobiya iyo Shiinaha iyo xiriirka dadka iyo dalka waxaan ka wada hadalay sidii aan u ilaalin lahayn mowqifkeena adag ee ku aadan mawduucyada iskaashiga horumarinta ee kala duwan ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha sahayda tamarta iyo gaadiidka iyo sidoo kale meelaha soo ifbaxaya sida ganacsiga elektaroonikada dhaqaalaha dijitaalka